waxaan ku soo koray xamar jilib laakiin noloshayda inta badan waxaan ku qaatay magaaladan muqdisho waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ku soo kortay meeshii la dhihi jiray orphan trophy muddaan ku jiray adigu goor dambe ayaa waxaa la yidhi muxuu ahaa ciidamo iyo waxaa la qorto dadkii ka cararay baan ahaa inaanan ciidan qoran waxbarashadayda aan sii wato adigu nasiib wanaag waa ku dhammeeyey dugsiga sare jaamacad waxaan nasiib u helay inaan maaragtay dowladda shaqo aan ka helo adigu 1973 nasiib wanaag adigu darajooyin fara badan iyo xilal fara badan oo kala duwan ayaan waxaan ka soo qabtay dowladda hoose ee muqdisho jaamacaddana macallin baan ka ahaa jiray markii dambe oo dagaaladii wixii ay dhaceen dadkii cararay oo aan u dhabar adeegin dhibaatada dalka ka dhacday ayaan ka mid ahaa sababta aan u cararayna ma ahayn inaan geeri ka baqayay laakiin indhaxumada ayaan ka cararay dhibka iyo muxuu mashaakilka ana waxba ka qaban karin muxuu ah dalkayga dadkayga haysto dartii ayaan ugu cararay baqa waxaan ku tegey marka meesha adduunka lagu magacaabo dhulka hoostiis oo dadka qaarna u yaqaanaan Australia halkaasna muddo badan baan joogay waxaan isku dayay inaan muxuu ahayto markaan meesha tegayay waxa jiray ilaa qabiil kasto ama beel kasta waxay lahayd urur gooni ah waxaan isku dayay inaan isku keeno aniga iyo rag kale inta oo maaragtay iga caqli badan igana aqoon badan lagana yaabo maaragtay xagga Soomaalinimada inay aad iiga fiicnaayeen nasiib waxaan u yeeshay in la yiraaho sharciga lagu dhaqi lahaa daraaf garay ama qor wixii baan isku duunin adigu ugu dambeyntii waxay gaartay in aan helno ilaa 11 urur ay isku yimaadaan hal urur ay samaystaan isla markaasna ururka hawshiisa inaan aniga aan wado macnaa shaqadii ama xiriirintii ama u adeegidii bulshada Soomaaliyeed maaragtay inaan anigu wadana inkastoo rag kale inta oo madaxoo ururka madax ka ah ay jireen aniga ayaa mataqaanaa ninka dowladda iyo dadka u adeegaya aniga ayuu noqday marka ka damboone waxaan door biday markii xoogaa nabadii ay yar soo noqotay inaan weli xooganahay aan wadankii wax ka qaban karo haddii aan macallin jaamacadeed aan noqon karo iyo haddii aan maaragtay muxuu ahaa howlo kaleento oo loo baahan yahay aan ka qaban karo dalka sidaa darteed ayaa waxaa igu kaliftay anoo ambishinkaas leh inaan dalkii dib ugu soo laabto sidaa ayaanan maanta ku joogaa